runtii oday waa wax la hubo inta meesha fadhisan inaan ka wada weynahay waa wax la hubo welise waa noolaho waa socdaa wax badan aadan ogeynan ogahay wax badan aadan maqlinna waa soo arkay marka in yar keliya anigu aqoontaydu waa xagga dhaqaalaha maca kulli ixtiraam dhaqaalan si fiican u aqaan iyo dib u heshiisiinta iyo governance-ka wax noocaas oo kale ah waxaan xusuustaa dhammaantay anigu waxaan ku soo waxbarta waxay tahay waddamada ajnabiga talyaaniga qoladan maxaa la yidhaahdaa maraykanka iyo wax la mida marka aqoonteedu waa xaggaasay u badantay laakiin dhallinyarada meesha fadhiso marka lagu daro professor xasan oday inuu yahay u malaynina aadan oga weyna waa isku dhow maaha waxaan ku bartay waxay ahayd aqoonta qarbiga ah ayaan wax ku bartay waxyaabaha cajaa'ibka waxay tahay waxaa la ii sheegi jiray marka laga hadlaayo aqoonta chemistry kimiya waa carabi logarithm waa carabi xisaabaadka markaad aragtid oo dhan af carbeeda ahayn laakiin ma aanu fahmayn markaas meesha dadka iskale ma fahmayn markaan duqoobay ayaan bilaabay inaan wax barto waa idiin ardaynimo dib ugu noqdo waxaan xaqiiqsaday aqoonta maanta ay gaaladu sheeganayso inay ahayd aqoon islaamiya islaamka inay lahayd taariikhdan dabagalay ayadoo dhanba waxay ahayd cilmigoo dhan islaamka gacanta ku haya ilaa aad arkaysaan maanta logarithm waa kimika alkimiya sidaasaana loo baray laakiin uma arkayn markaas aqoon islaana inay tahay runtii abshir aadan ugu mahadinayaa markaan weynaado baan arkay wixii aadna waxaan kaaga mahadinayaa inaan aqoon badan kaa faa'iidaysto runtii hadhiina ninkaa gaaban waxba ma qorin wax weyn ayuu qoray taariikhda islaamka waa wax weyn oo aan cumqi macnaha culayska ay leedahay lama gaari karo marka runtii abshir waa cajaa'ib buugga in yaraan ka akhriyay waxaan arkay waxaan baranayno idilba inay ahayd islaami min alislaam inay ka soo baxdo marka waa kugu mahadinayaa anigoo aqoon cusubay inaan barto mar labaad abshir ardaygiisaan noqonayo hadda kadib ardaygiisa marka ninkaa gaaban ha u qaadanina waxa uu ka hadlaya wax gaaban inay yihiin islaamkina waa sheegay aqoonta islaamkina ka soo waa intii yaraanta islaamka waa maqlin laakiin noloma ogoleen inuu baro abshir waxaan ugu baahanahay maanta macallin inuu ii noqday wax badanna aan ka baranayo maxay ahayd utlib alcilma min almahdi ila alluxdi waa rasuulku uu sheegay haddaan waxbarasho ku jiraa marka inaan barto islaamka siduu aqoonta meesha uu ka gaaray inaan barto mar labaad professor xasan aadan kuugu mahadinayaa runtii abaal waxaa waaye lagama abaal laco ninkii hadda ardayga iga dhigay macallinkiisa soo abaal ma laha macallin xasan wey professor xasan wey isagaa wax soo baray anna isagiiaan wax ka baranaa waa mahadsanta professor wax badan ma hadli karo waa xoogaa waa daalanahay iga raalli ahaada buugaagta tiradooda lasu sheegay anigu dadka lacagta hayso kuma jiro ma sheegayo tirada waa qarsanayaa laakiin tiro la yaqaan waa qaadanaya insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin habeen wanaagsan wararka warbixinada
waraysyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.